الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رئيس الوزراء جمهورية فدرالية الصومالية مدن حمزة عبد البر، صاحبك وزيرك أوقافتي أرمها دينتا الشيخ مختار علي روبلة، xildhibaanada labada aqal ee halkan inala jooga, madaxda jaamacadaha Soomaaliyeed, culamaa u diinka iyo gabdhaha iyo wiilasha tababartayaasha ah ee loo carbinayo in ay diinta islaamka fidiyaan bartaana daraasaadka islaamka ee fursad u helay. dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. farxad kale oo weyn ayay noo tahay inaan maanta halkan iskugu imaano oo aynu isugu nimaadno gurigii ilaahay baytullaahi, aynu isugu imaano si aynu u xoojinno diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo soo dejiyey ina addiina cinda allaahi alislaam. diintiina runtii dhib aad u weyn ayaa ku dhacay. dhibkaana wuxuu ka yimid aqoon darro weyn oo diinta loo qabo. aqoon darradu mararka qaar waxay keentaa ama waxaa la yidhaahdaa alguluw, xadgudubka, ama waxay keentaa ta'wiilu ljaahiliin, gaar ahaan xilli lagu jiro yacni loolan adag oo ku saabsan jiritaanka diimeed islaamkuna uu qayb ka yahay. loolankaas xooggan oo xadaaraddiisii iyo sharaftiisii iyo karaamadii insaanka uu soo fidiyey ee maanta lagu hayo loolan adag oo la rabo dadka muslimiinta ah loolankaas inay u badac dhigaan oo aysan madaxa hoos u foorarin. runtii mudane ra-iisul wasaare, waxaan jeclahay halkan inaan aad iyo aad ooga ammaano saaxiibkay sheekh mukhtaar cali robow oo xil badan iska saaray markii uu yimid wasaaradda in ay yeelato mu'asasaad xooggan oo waaweyn. mu'asasaadkaasna waxaa ka mid ah masjidkan aan hadda joogno, muhiimadihii loo dhisay oo ka weynaa bas in salaadaha lagu tukado ama xuska lagu sameeyo keliya, ee inuu noqdo madraso iyo markas iyo jaamacad ku guulaystay oo wakhti badan ku bixiyey oo habeen iyo maalin u soo jeeday oo dhaqaale isagoon ka raadinin miisaaniyadda dowladda iyo wasaaradda maxaa yaalla aanan ka raadinin ku guulaystay in macadkan dib loo furo oo dib loo soo abaabulo. runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayuu sameeyey. waxaa xusid mudan inaanan iloobin dhismaha masjidkan markii la dhisayey ayaaba loogu talagalay inuu noqdo markas. waxaa runtii aan xusuus aad iyo aad u xusuusanaynaa almelik faysal raxmatullaahi calayhi oo amray maalkiisana ku bixiyey in masjidkan la dhiso, iyo mamlaka alcarabiya sacuudiya oo wakhtigaas han weyn u qabtay in meeshana ay noqoto jaamacad ee ummadda muslimiinta wax lagu baro iyo dadka Soomaaliyeed. markii dee dowladdii kacaanka ahayd ay diintii dhinac martay, in la bartaba iska daayo weerar ay ku qaaday dad badan oo culummo qaarkood halkan nala jooga. danta waxay ku khasabtay inay dhoofaan oo badaha maraan oo sacuudiga naftiisa aadaan oo jaamacada ka soo dhigtaan. tan hadday furaan lahayd runtii umaba ay baahdeen inay jidkaas iyo meesha dheer ay aadaan. maanta fursaddaas ayaa mar kale inoo timid 50 sano kadib in markaskii iyo macadkii uu shaqadiisii dib u bilaabo. shaqadaa la bilaabay runtii sheekh mukhtaar ayaa gartay in uu noqdo macad raacsan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. ardayda jaamacadda oo ah arday daraasaat alculya master qaadanayso howlo badanaa u yaalla hadday wax bartaan. waa idaan dambe waxaa iska badatay diin la bartaa maxaa lagu qabanaya iska baratay yaa iska batay. howlo aad u tiro badanaa u yaallo marka laga soo tago howlaha culummada ay hayaan iyo howlaha wasaaradda ay hayso. annaga haddaan nahay wasaaradda waxbarashada waxa aan soo jeedinnay oo jaamacaduhu ay nala qaateen in jaamacadaha lagu daro maadada la yiraahdo daraasaadka islaamka oo khasab ku ah arday kasta
oo jaamacad dhiganayo haddii su'aalaha la isweydiiyey yaa wax baraya dadkaas marka dadka la rabo inay wax baraan waa kuwaan maanta halkan taagan marka waa yar yihiin markii hore waxaan ugu talagalay wax 150 qof ka yar laakiin dalabka aad u batay meel si loo kala reebana waa la waayay marka aniga walwal kama qabo waxay qaban doonaan iyo waxay ka shaqayn doonaan walwal kama qabo laakiin inay daraasadooda si fiican ay u bartaan oo ay hawshaas ay hagaajiyaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeedna waxay diyaar u la tahay wax allaale iyo wixii nidaam ah oo jaamacad ay lahayd maamul iyo manhaj iyo imtixaan iyo shahaado iyo i'tiraaf iyo wax kastaba inay la garab istaagto oo ay samayso markale aad iyo aadan wasaaradda awqaafta ugu mahadcelinaya hay-adaha kale dawladdana waxaan ka rabnaa hay-addii takhasuskeeda iyo waxa iyadu ay ka shaqayso suuro gelin karta in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay wax ka qabato waan ku soo dhawaynaynaa waxna waan ka qabanaynaa mar raba hadalka inaan sii dheereeyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan soo dhawaynayaa wasiirka awqaafta iyo shu'uunta islaamiga Sheekh Mukhtaar Cali Roobow falyatafadal mashkuura